marka koowaad waxaan rabaa magacayga inaan sheego Axmed Macalin Fiqiin la yiraahdo wasaaradda difaaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan uga mahad celinayo inay ii doorteen oo aan noqdo wasiirkii saddexaad inta teeramkan ay socdo oo wasaaraddan qabta waxaan aaminsanahay inaysan sharaf gaar ah aysan ahayn ee ay tahay mas'uuliyad weyn oo waqti adag ku soo aaday oo waqtiga iyo mas'uuliyadda ama waajibaadka dalka u yaalana waajibaadku badan yahay waqtigaas adag waxaan rajaynayaa inta badan wasaaradahan ka soo shaqeeyay ama meelihan ka soo shaqeeyay kalimadda wii ayaan adeegsadaa annaga weligay aniga magacayga waxaan ahayn uma adeegsan annagoo wada jirna wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka kale oo qalabka sida iyo ummadda Soomaaliyeed annagoo wada jirna waxaan noo yaalla shaqo runtii adag oo qaran oo u baahan nafhurnimo u baahan inaan iska dulqaadno cadow adduunkii na soo kaalmeeyey uu naga daali rabo oo 18 sano sanad waa lagu caawin karaa 2 sano waa lagu caawin karaa 5 haddii maximumka ay gaarto waa lagu caawin karaa laakiin 18 sano in aan gaashaandhigeenna ama ciidankeenni weli aan codsanayno ciidamo kale ama dalka inoo joogaan ciidamada kaalmeynaya waxaad moodaa inaan dunidu nagu sii fiirsan karin haddii ilaahay yiraahdo anoo u mahad celinayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqadan adag ee naloo igmaday waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu fiican oo ummadda Soomaaliyeed raalli ka tahay oo tabarteena ah inaan u qabanno haddii ilaahay yiraahdo annagoo iskaashanayna arrinta amnigu waad aragteen wiil macawisley ah ayaa looga maarmi waayay dad baa looga maarmi waayay bulshada iska badaa wasaarad gaar ah ama talis gaari shaqo kaligiis uu qaban kara maaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa uga baahannahay inay garab qabtaan maanta marka oo aan si rasmi ah ula wareegayo hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga waxaan is xusuusinaynaa in difaacu yahay halbowlaha jiritaanka qarannimadeena waa waajib qaran oo na faraya inaan u midayno awoodeenna hantideenna nafteenna iyo caqligeenna si aan u xaqiijinno nabadgelyo buuxda in Soomaaliya ay hesho difaac ay hesho iyo jiilasha soo socdana mustaqbal ay ku noolaadaan oo ay nabad ku noolaadaan inay helaan wasaaradda gaashaandhiggu waa hay'adda mas'uulka ka ah difaaca madax bannaanida dalka iyadoo adeegsanaysa dabcan ciidankeeda ilaalinta sharafta shacabka iyo suurtagalnimada danaha qaranka gudaha iyo dibadda waa gaashaanka difaacaya jiritaankeenna midnimadeenna iyo hannaankeenna dowladnimo ee Soomaaliyeed qaran walbana waxaa lagu qiimeeyaa dunida hadda joogta awoodda ciidankiisa tayada hoggaankiisa agabka uu haysto iyo shacabka heeganka u ah shacabka deegaankaas ama dalkaas ee heeganka u ah inay garab istaagaan muddada aan joogno insha allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa in la dhammaystiro oo aan garab u noqonno ciidankeenna sidii loo dhammaystiri lahaa khawaarijta isku soo bahaysatay qarannimadeenna dul taagan horumarkeenna dul taagan muddadaas ilaahay ciidankiis ilmaha sirarka waxaan goobjoog u ahaa aniga markii 2011 muqdisho laga saarayay taliyaha nabad sugidaan ahaa waxaan safka hore uga jir dagaalkaas waa ilmo yaryar oo aad aan isku naqaano oo aan rajaynayo ilaahay ciidankiis inaan annagoo caalamka saaxiibadeena kaashanayna in ay muddo kooban nagu dhaafaan waxaan xoogga saari doonaa dadka Soomaaliyeedna waa buruuf gareeyeen arrintaas 2-3 sano ka hor
ama 2 sano iyo bar ka hor halkaana laga dhaqaaqay meesha ciidanku joogaanna waa loo yahay maanta meel fiican bay joogaan waxaan xoogga saari doonaa wixii dib u habayna oo horay u socday inay sii dhammaystirmaan oo aan soo saaranno ciidan ku suntan tayo aqoon iyo anshax lagu halayn karo amniga dalka gudan kara waajibaadkooda keligood ciidamada kale ee nala joogana aan leenahay waa isku fillaannay markii aan gaarno halkaas waan mahadsantihiin waxaan xoojin doonaa wasaaradda difaaca inaan barnaamijkeeda iyo reformkeeda inaan qayb ka ciyaaro waxaan hirgelin doonaa qorshaha horumarinta amniga qaranka security sector development plan oo si buuxda qorshahaasoo madaxweynuhu dalku ka daahfuray magaalada New York 21 December 2023 waxaan xoojin doonaa xiriirka shacabka iyo ciidanka u dhaxeeya sidaas si la mid ah waxaan xoojin doonaa xiriirka dadka caawiya dowladaha caawiya ciidankeena oo aan dhageysan doonaa konseynkooda iyo talooyinkooda ku saabsan muddadii ay ka shaqaynayeen ciidanka difaacu waa shaqo wadaniyadeed waxaana lama huraan ah in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto muhiimadda ciidanka qaranku ama ciidanka xoogga dalku uu leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeedna meel uu joogaba waa inuu ku tabaruca maalkiisa maskaxdiisa iyo si halgankaas aan kugu jirno dalkeenu inuu soo ceshado awoodiisii uu hirgalo ugu dambeyn waxaan ballan qaadayaa inaan si daacadnimo oo hufnaan leh wadaniyad leh aan u gudan doono waajibkeena qaran waxaan rabaa inaan xuso dad hal nin oo ka mid ah markii lay magacaabay asoo kaligiisa magaalada Nuur Dugle qori aakay wata ka dabaaldegay oo yiri ninkaas waa soo dhaweynaynaa reer Nuur Dugle inkastoo laga Jalalaqsi iyo Hiiraan shabeellada dhexe iyo Mudug iyo Galgaduud iyo gobolada dalkoo dhan ilaa Khaatumo arrintaas laga soo dhaweeyay haddana waxaan rabaa inaan xuso Sheekh Cali Muuse Cusmaan oo reer Nuur Dugle mujaahidiinta halkaas dagaalka uga jira oo kaligiis qori aakay inta istaagay oo beesha kabaala oo kaligiis inta qori la istaagay kaligiis riday oo dabaaldegay waxaan ku leenahay Sheekh Cali iyo ragga la midka waxaan kugula jiraynaa ku kaalmeynaynaa inaad deegaankaada difaacatid khawaarijtana aysan tareed ama amni darre ku noqon Nuur Dugle iyo deegaan kastoo Soomaaliyeed waxaan rabnaa ciidanka xoogga dalku wuxuu matalaa xoogga dalka la yiraahdaa in ciidan Soomaaliyeed oo Soomaali ku kalsoon tahay waan qabiil lagu tilmaamin oo haybta ciidanka leh aqoon leh ciidanka Suudaan ayaa tusaale loo soo qaadan karaa waxay noqdeen unugta kaliya ee dowladnimadii hadda haysa ciidan 100 sano jiray isku kalsoon يعني dalkoodii difaacday ka difaacday weeraradii lagu soo qaaday muwasaadka ciidanka marka qabiil maahan ciidanku maahan koox gaara ciidanku deegaan gaara maahan ciidanka qaranku qof kasta oo Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid ayaa la rabaa inuu garab istaago horeyna maalmo dhexdaas oo sheegnay siyaasadka la isku hayo laga dhex saaro ciidanka waliba waxaan la fariisanaynaa ragga saaxiibada mucaaradka waa la fariisanaynaa si aan u dhageysano haddii talo ciidanka lagu hagaajinayo ama talo ay hayaan si aan isku barbar uga soo wada jeesano hadday dhab ka tahay in khawaarijta dalka laga nadiifiyo waxaan soo dhaweeyay waxaan rabaa inaan salaamo ciidanka dhufaysyada hore ku jira ee Soomaaliyeed ee runtii duruufta adag oo hadda wasiirkii iga horeeyay uu sheegay ku shaqeynaya muddo dheer dalkan halkan ka qaaday aan ognahay mar kamida mararkooda inay sakaba haysan 2011 dhar qaadiyo militariga aysan haysan tuutihii oo ay ku dagaalamayeen ayagoo saandal wata mararka qaarkoodna macuus wata laakiin maanta meel fiican baa la soo istaajiyay taliyaal badan baa isaga dambeeyay taliyadaana nafurnimadiisa iyo geesinimadiisa isagana runtii waa amaanaynaa in dhalinyaro oo waxa weeye shaqo fiican dalka u haya
waxaan rajaynaynaa inaan taliska iyo wasaaraddu aysan culowtamin loolan ka dhex dhicin loolanku waa midda halkaana dhigay wax la iska riixanayo sidii jaamac uga tegay oo jibriil hadda uga tegayo ayaan uga tegi doonaa sidii taliyaalkaaga horreeyay ay uga tegeen ayaad adiguna uga tegi doontaa wax loolan la yidhaahdo dalkeenna waxay u danaynaysaa khawaarijtu inay dalka sii joogaan ama hay-adaha kaloo amniga ha ahaato ama shacabka soomaaliya dhammaantiis loolan ma jiri doono iskaashi isgarabsi iswalaalaysi isla shaqayn iyo is-aaminid ayaan abuuri doonaa taliska iyo wasaaradda taasaanan anigu calankeeda wadi doonaayo layguma arki doono anoo la ficiltamaya taliye ama anoo maaragtay hawl kale oo kale ka dhex sita ciidanka waxaan sixi doonaa logistikadiisa anigu xardheeraan joogay bil iyo xoogaa baan ku sugnaa berigii 2023 markii meelaha qaar laga soo baxay runtii ciidankaas waxaan ogaa labada urur oo halkaas joogtay duruuftay ku jireen iyo dhibaatada ay u qabeen in shidaalku soo gaaro ama raashinku soo gaaro oo mararka qaarkood aan uga gadaynay meeshii aan joognay waxaan sixi doonaa tayada cuntada ay cunaan tayada shidaalkooda inuu ugu tago meeshooda iyo dhammaan wixii caqabado jiray inaan meesha ka hor wareejinno oo ka qaadno hadday caqabado ahaayeen maaragtay wasaaraddu waddo iyo haddii meelo kale ay ka jireenba logistikada soo daahideeda hadday ahayd waxaan garab siin doonaa haddii la yidhaahdo in ciidamada soomaaliyeed ay u dallacaan oo taliyaha iyo taliskaba ay u dallacaan hab meerida oo xildhibaan ama wasiir inta qaado koox qabiilkiisa madaxweynaha inta u geeya yidhaahda halkan jenaraal iga dhig ninkan ama taliya iga dhig taas waan sixi doonaa xataa darajooyin qaldan haddii la baxsho annagoo kaashanayna taliska dib baa loo sixi doonaa waxaan rabnaa reform good inay ka dhacdo arrintan oo ciidan dadka soomaaliyeed ay ku tiirsadaan ee meesha ka dhacan waxaan ku soo dhawaynayaa intaasaan ku khatimayaa insha allahu tacaala wadatashi bay arrimahaas oo dhammi ku dhacayaan iyo isku soo dhawaasho waxaan mar kale u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii 3 sano la soo dhaaf